السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ريال ما أنت وحن إذين وضع طبعا قضب أما طبعا طلق أو أن أقول طلق جلي إن إذن لو ذاقو سهلوتو فوشينو أي النقطة فول أتماركتي وحياة بدن أو وناجا أتكو حسوسن دونتان فول معنيه أتكجبت بعد دونتيد وحياة بدن أو ماندوريا oo aad hadhowto u isticmaali lahayd si uu xanuunka kaaga yareeyo. horta gabar kasta waxaan rabaa inaan xasuusiyo haweeney kasta in ilaahay jirkeedu uu u sameeyay in ay kaga dhex bixi karto dhalitaanka, inay uur yeelato, inay dhasho, maaragtay waxaasoo dhan wuxuu jirkeenu uu u samaysan yahay. nimanku hadday dhali lahaayeen may awoodi kari lahayn, maysan ka dhex bixi kari lahayn, balse alxamdulilah ilaahay wuxuu noo sameeyey jir waxaasoo dhan maaragtay samayn kara. tobankan qodob marka waxaan ugu talagalay walaal ama tobankan talo si aad uga badbaadaan oo aad u yaraysaan daawooyinkii aad ku qaadan lahaydeen isbitaalka markaad joogtiin. qodobka koowaad waxa weeye haddaad awoodiin oo heli kartiin raadsada gabar duula ah. duula waa maxay? duula sideedaba xageebuu ka yimid? wuxuu ka yimaaday waddanka Greega, kuwaasoo qarniyo badan ka hor markii ay gabar ka mid ah ay foolanayso oo dhalayso waxay samayn jireen feesto yar ayay samayn jireen. gabadha meesha ku dhalaysa ayay ugu imanayaan maaragtay iyagoo dhiirigelinaya haweeneydaas dhalaysa. marka sanadadan dambe waxay noqotay in la barto waxyaabihii lagu caawin lahaa haweeneyda dhalaysa, in waxay noqotay lacag lagu kala qaato. sidaa darteed gabdhaha ku nool Sweden waxay nasiib u heleen inay helaan duulooyin lacag la'aan maaragtay ay ku helayaan. marka haddaynan duulo haysanin, wadamada aan duulada laga aqoonin, markaas heli karinin duulo waxbarasho iyo khibrad u leh waxa ay samaynayso, waxay samaynaysaa gabar ehelkeeda ah, gabar saaxiibteeda, gabar dariskeeda ah, dad micnihii qof markaas iyadu ay ku kalsoon tahay, qalbigeedu ku degan yahay. hooyadeed ha noqoto, qaraabada kale eedii habriir ha noqoto, ilmo adeer ha noqdaan, daris ha noqdaan, saaxiib ha noqdaan, qof allaala qofkii markaas adiga aad rabtid inuu isbitaalka kula joogo diyaarso. intaadan dhalinin kala sii munaaqashood qodobooyinka aad jeceshahay inay kaa caawiso. ha baqin, wax allaala wixii qalbigaaga ku jiro soo bandhig. sidaa darteed duuladu waa muhiim. duulo ma ahan umuliso, balse duulo waxay khibrad iyo maaragtay waxbarasho u leedahay qaab kale oo adiga ay kuu caawiso xanuunka ku haya, ay kaala caawiso si aad uga gudubtid. mararka qaarkood isbitaalada wadamadan hadda horu maray umulisada kulama fadhiso, kulama wada joogto, way kuu imanaysaa, gacantay kuga gelinaysaa, waa kaa tegaysaa, way kuu soo noqonaysaa, laakiin duulada way ku ag fadhidaa, way kula joogtaa, way ku xasuusinaysaa wixii aad samayn lahayd ayay ku xasuusinaysaa, way kuu masaajeynaysaa, way ku garab taagantahay, way ku dhiirigelinaysaa. sidaa darteed waa inaad haysatiin qof markaas ku caawiya. stresska wuu kaa yaraanayaa markii lagu dhinac fadhiyo, markii lagula joogo, nabarku markuu kaa foqo aad sheekaysan kartid, aad qoslaysid, waa kuu muhiim. qodobka labaad ama talada labaad waxa weeye naso. goormaad nasanaysaa? waxaad nasanaysaa markaa xanuunka foosha bilowga markuu yahay. xilliga bilowga uu yahay sentimitirada hore markay ku furmayaan, 2, 3, 4 sentimitir markay ku furmayaan, markaas nabaradu way kala dheer yihiin. weli xanuunkooda saa'id ma ahan, walow gabar kasta jirkeedu uu gooni yahay. qof walbaba xanuunka si ayuu u dareemaa, balse xilliyadaas naso, maadaama nabarku uu kaa fuqayo oo uu ku macay daqiiqado uu micnihii uu kaa maaragtay uu kaa tagay uu soo noqon doono naso. nabarku wuu bilaabmayaa, kor buu u baxayaa,
haddana hoos buu usoo baxayaa markii uu soo socdo ee aad aragtid inuu kor usoo baxayo neefta bilow iyo inaad isdibcisid markuu kor aado ee meesha ugu xanuunka badnayd haddana wuu soo degayaa kabacdi nabarkuu ku daynayaa haddana midkii kale mawjadii kalaad bilaamayso labada nabar dhexdooda naso adoo nasanaya oo isdibcinaya nabarada markay kuu yimaadaan sidaan kuu sheegay qof markaas kuu riiriixo ama duulo ama qof kale kuu riiriixo ayaad markaas haysataa ama ninkaagaba waad kala munaaqashoon kartaa intaas buu kuu samayn karaa xataa xaajigaaga qodobka saddexaad biyo cad waa inaad haysato galaas biyo ah oo ku ag yaalla biyo waa inaysan kaa fogaanin ama juice ha noqdaan ama ha noqdaan maxaan ku dhahayo biyaha cad biyaha saaftiga biyaha maaragtay la qaso wax markaas adiga energy ku geliya waa inaad haysatid markaas aad micnihii uu nabarka kaa foqo waa inaad wax cabtid waa inaad nasatid qodobkii labaad nasashada ahaa marka ayadana wax cab qodobka afraad dhabar diid dhabar ha u seexanin maxaa yeelay dhabarka waxaa ka fiican oo kaaga fiicnaan karo inaad istaagtid ama waxaa kaaga fiicnaan karo dhinac qodobkaygii labaadoo nasashada ahaa haddaad ku jirtid dhinac u seexo dhinaca ayaa ka maaragtay fiican in qofku dhabar u jiifo dhinaca markaa u jiiftid barkin yara labada lugood dhexdooda gasho labadaada lugood dhexdooda meeshii markaas adiga raaxo kuu ah barkin gasho qodobkayga shanaad iyadana waxa weeye xanuunka qaabil see xanuunka u qaabile xanuunka haddaad cadow ka dhigatid asna cadow ayuu kaa dhiganaa xanuunka haddaad diidid wuu ku qabanaa maadaama aad cadow ka dhigata asna cadow uu kuu noqday xanuun waxaa ku qabanayo aan quwad lahayn xanuun ah balse adiga aan waxba kaa kala socodsiinaynin ayaa ku qabanaya sidaa darteed xanuunka qaabil xanuunka mar walba concentrationka sii markuu kugu soo socdo aa aragtid isu dabci isu kala daadi neefso sanka ka jiid afka ka daa weligaa ma soo gashay guri la nadiifiyey uunsi loo shiday caraftiisa ma ku deeqday seebaa tiri weligaa barafuun aad u caraf badan gaf ma kugu yiri see tiri weligaa adoo meel kulul joogo waddamadan kulaylka ahee saxaraha ah waddamadaas meelahaas kulul maaragtay qoraxdeeda uu maaragtay daran yahay adoo jooga ma soo gashay dukaan ama meel marwaxad leh ma tiri xabadkaaga kor ma u kacay hoos ma u degay xabadkaaga kor ma u kacay hoos ma u degay ma jeclaysatay ma macaansatay nabarka saasoo kale u qaabil haddaad nabarka is adkaysid waxaad adkaynaysaa murqihii iyo kafkii meeshii murqaha ilmagaleenku ay marayeen ayaad adkaynaysaa cunugka kor ayaad ku celinaya balse xanuunka markaa qaabishid jirkii ayaa dabcisay murqihii ayaa dabcisay waxay sahlaysaa inuu cunugu kaa soo baxo adoona adkayninin inuu waqti badan oo aad beeldarayn lahayd ayaad kaydisay sidaa darteed xanuunka qaabil ha kugu dhaqmo sidii roobka uu kuugu dhaqmayo ha kuugu dhaqmo ilaa isagoo sii marayo caloosha gumaarka cajirada ha ka baxo xanuunka qaabil ayadana weligaa qodobkaygi lixaad weligaa adiga oo yacni foolanaayo oo foosha qaybteeda dambe qaybtii horeeto waxaan ku idhi energy soo qaada soo naso qaybta dambe dhaqdhaqaaq maxaa yeelay jirkaagii wuu soo raaxaystay waad soo nasatay labadii nabar dhexdoodii waad soo waxaysay markaan dhaqdhaqaaq samee qofku hadduu keliya iska jiifo waxaa dhacayso mararka qaarkood maxaan ku dhahayo dabagibinta dhabarka dabagibinta meeshaas dhulkaad ku haynaysaa dhulka markaad ku haysid cunugii wuxuu ciriiri uga dhigayaa inuu soo maro kafkii sidaa darteed dad badanaa xataa dabagibinta xanuunka dareema
kabacdi markay dhalaan kabacdi xanuun dareema waxaa kaaga sahlan in aad maaragtay sariirta laftigeeda in aad ku joogsatid oo jilbaha dhigatid adiga oo saas dhahayo ama afartaada labada calaacalood iyo labada jirib adoo dhulka dhiganaya oo macnihii sariirta dhigayo waa inaad saatira mar walba waxaa kuu fiican dhinac ama waxaa kuu fiican in aad gadoontid oo mar walba dhabarkaas yacni iska ilaali ilaa marka ugu dambayso cunugu kaa soo baxaayo waad u jiifsan kartaa dhabar umulisada way u fiican tahay way u sahlan tahay adigana waxaa laga yaabaa inaa istiraadisaana kuu fiican marka ugu dambayso waa u seexan kartaa ee cunugu kaa soo baxayo laakiin inta kaleeto dhabarka iska ilaali dhaqdhaqaaq fadhiga badan iska yaree micnihii marka mar walba jirkaagu wuxuu dareemaya samee markaad daashid waad u maaragtay waad bedeli kartaa markaas sidii aad micnihii u taagnayd ama aad ahayd si kaleeta ayaad samayn kartaa mar walba jirkaagu wuxuu dareemayo horta samee gabar kasta waxaan kula talinaya jirkeeda balse dhabarkan tirada badan ee cabsida keenaysa qofku inuu cabsi darteed sariirta iskaga jiro iyo inuusan dhaqdhaqaaqin uu isdhahayo cunugii ayaa kaasoo duulayo taas mar walba iska ilaali qodobkayga 7aad waa inaad heshid dhiirigelin qof xanuunka nabarada kugu dhiirigeliya waa inaad heshid waa inaad qofkii duulada ahayd ama qofkii ehelka ahaayee ku raacayay ee aad diyaarsatay waa inaad tiraahdid dhiirigeli mar walba markaan wax fiican sameeyo aan neefsado aan si fiican sameeyo dhiirigeli maasha allah waad ka dhex baxday si fiicanaad u neefsatay nabarkii hadda nabarkii waa ku daayay soo maaha naso isdabci garabka dabci garbaha dabci u naso nabarka soo socoto u naso sidii aad u qaabili lahayd nabarka soo socoto samee meeshaan isdabci qalka isdabci babiskaaga yaraa inta lagu soo qaado ha lagugu babiyo qof markaas adiga ku dhiirigeliya ee aan hadalka kaa horkeenin ee hadalka aan kugu dhibinin waa inaa markaas aad haysatid qodobkayga ayadana maxaan ku iraadaayo 8aad 7aad soo maaha qodobkayga 8aad waxaad samaysanaysaa isbitaalka markaad timaado dad badan ayaa isbitaalka markay yimaadaan waxay dareemaan maadaama isbitaalku uu yahay meel jiro loo tago inuu bukaan isaguba yahay horta gabar kasta waxaan rabaa inaan xasuusiyo ee uur leh ma jirana bukaanna ma ahan cunug unbay dhalaysaa sidaa darteed qolka markaad soo geshid mararka qaarkood waxaa kugu dhacaya stress maadaama qolkii asagii yaab stress wataba isbitaalkii oo isbitaalka maadaama waxaan aaminsanahay inay jirada loo tago waxaad is leedahay talo ma jiranahay aniga mise cabsiyaa kusii galaayaba sidaa darteed nabarku wuu kaa tegi karaa qofka markuu stress galo nabarada ayaaba iska bixi karaba haddii la doono sidaa darteed qolka markaad soo geshid si aad gurigaagii camal uga dhigatid waxyaabo aad jeceshahay oo gurigaagii aad ku haysatay oo aad jeceshahay inaad fiirsatid ama hadday noqon lahayd maxaa la yidhahdaayo sawir yar hadday noqon lahayd nal guduudan hadday noqon lahayd nalal iftiin daciifa ayagoo nalalka iska diminayo gabar kasta ee isbitaalka tagta nalalkan tirada badan hadday iyadu ay nalalka tirada badan jeceshahay waa meesheeda laakiin waxaa u fiican inay meesha mugdi ka dhigato inay meel yaroo macaana ka dhigato inuu maaragtay degto ina iyada qalbiga u dego marka sidaa darteed nalal kala nooca waad soo qaadan kartaa nalalka waa iska demin kartaa isbitaalada qaarkood nalal kala noocyo ahaa yaala yacni iftiinkoodu kala duwan yahay nalka ugu iftiinka yar ayaad soo reeban kartaa haddaad doontid wixii markaas adiga aad dareemaysid gurigaagii ahaan aad ku dareemaysid aad isbitaalka waad ka samaysan kartaa xaq baad u leedahay waxaad samayn kartaa waxaad sii qaadan kartaa quraan ayaad sii shidan kartaa waxaad samayn kartaa oo kaleeto maxaa la yidhahdaa gabadhii markaas jecel muusigyadan maaragtay lagu lulmoodo lagu seexdo oo maaragtay dhahaayo waad soo qaadan kartaa markaas wixii aad jeceshahay gurigaaga kuu yaala inaad xagga ku haysatid waad geysan kartaa haddaad jeceshahay hees gooniya in maalinkaas aad dhegaysatid oo maaragtay heeso adiga markaas ay kuu yihiin maaragtay aad ka heshido khaas kuu ah waad samaysan kartaa sidaa darteed qodobkayga 8aad ka dhigo qolkaaga meel ku dejiya gurigaagii camal kuu ah
niyadda kuu dejiya adiga oo nalalkana iska dadaminaya haddaad maaragtay aadan iftiinka badan jeclayn aniga aad baan u jeclahay nalka in la iska yareeyo la iska damiyo qofkii markaas nal macaan guriga kala soo qaadan karana nalkiisa soo qaato qofkii maaragtay sidiisa kala muudiga rabana wuu samaysan karaa qodobkayga maxaan ku dhahaa 9aad kaadi musqusha gal soo kaadi biyihii badnaa aa cabbaysay musqusha gee kaadi haysta soo bannee maxaa yeelay kaadi haysta laftigeeda waxay ku kor taallaa ay isla siman yihiin ilma galeenka afkiisa sidaa darteed wuxuu cuslayn karaa in cunugaagu uu ku ciriiriyo meeshii uu soo mari lahaa kanaalkii laga dhalaayay uu mari lahaa ayuu ku cuslaynayaa sidaa darteed musqusha waa muhiim hal ma aha laba ma aha mar walbaba musqusha tag soo bannee kaadi haysta soo bannee waa kuu muhiim haddaad doontid isku kaadi no problem waa la dhaqayaa ha ka xishoonin maanta waa maalintaadii free controlkan tirada badan baqitaankan alla talow ama isku xaaraa allah waa isku xaaraye ama hiblaayo hadhowto igu caydaa ama hiblaayo loo sheegaa ama hebel loo sheegaa alla balaayaa dhacdayay war waxaas dhan ilow maalinkaagii waaye saad doontid ka yeel musqusha tag haddaa rabtid haddaadan tegi karin xataa oo aad maaragtay daalku kaa batay xataa meeshii aad joogtid bakaadida kusii daa haddaa rabtid gabdhaha Soomaaliya jooga waa dareemi karaa waxaa laga yaabaa in maaragtay ay maaragtay qaarkood sidii la rabay ay noqonin balse dadkeenan hadda aan dhaho Sweden jooga oo kaleeto waa laga bedelayaa waxyaabaha sariirta saaran markaas laga duuduubayo wax problema ma leh dhulka waa loo imanayaa waa la dhaqayaa marka sidaa darteed soo kaadi mar walba kaadi haysta soo bannee qodobkayga 10aad ee ugu dambeeya waxa weeye haddii umulisadu iyo adiga aad iskeeni weydaan oo aad maaragtay dareentid in maaragtay sidii la rabay ay kuu caawinaynin ama maaragtay aad ka dareentid in stress aad ka qaaday waa iska bedeli kartaa Soomaaliya waa gooni system ka duwan ayaa Soomaaliya ka jira laakiin dadkeenan hadda degan oo kaleeto Sweden waan bedeli karnaa wadamo badanna waan hubaa in ayagana la iska bedeli karo sidaa darteed haddaad umuriso yacni sidii aad rabtay raaxo ugu dareemi weydid adiga oo weliba yacni dareemay inaysan sii soconayn sheekada bedel waxaad dhahaysaa weliba qasab ma aha inaad adiga sheegtide waxaad u sheegi kartaa markaas qofkii kula joogo waxaad leedahay walaalay umulisadan ha la iga bedelo qofkii markaa kula joogo ayaa wuxuu leeyahay sidaasaan jeclaysanay gabadhaanu sidaasay jeclaysatay waxaan u baahannahay umuliso kale oo sidaan aan ka helno sidaa darteed umulisada waad iska bedeli kartaa haddii aad aragtay inaadan ku niyad samayn waay ay maaragtay fooshaadii iyo dhalitaankaagii maaragtay xusuus xun aad maaragtay uga qaadanaysaa sidaa darteed anu hadda ma lihi umulisada la dagaalo iska bedela laakiin waxaan leeyahay xaq ayaa u leedahay in umulisada aad iska bedeshid teeda kaleeto gabadhan ama qofkii markaa kula jooga ama odaygaaga mar walba xasuusi waxaad xasuusisaa haddii lagu arko inaad yacni is adkaysid wejiga adkaynaysid qalka adkaynaysid garbaha adkaynaysid cajirada adkaynaysid qof markaas ku xasuusiya oo gacanta kuu saara oo ku dhaho isdabci hadda nabaradii way kaa foqeen ama nabaradu kugu soo socda marka aad is adkaysid jooji isdabci neefso qof waxaasoo dhan kuu arka indhihi dhiga ku aad maacihii aa ka dhigatay waa in aad kala sii munaaqashootid intaadan isbitaalka tegin marar badan ayaa waxaa dhacdo inuu qofku go'aamo badan gaaro intuusan isbitaalka teginin go'aamadaas marar badan ayay isbedelaan balse mar walba niyadaada u fur wax walba oo fursad ah oo ku soo mari kara inaad qaadatid
inaad saartid diiradda saartid nabaradaada iyo xanuunkaaga adigoo markasta xanuunka markuu kuu yimaado la quusaaya wada quusa ha iska celinin ha iska hor istaajin qaabil adiga oo sidii maaragtay mawjada badda oo kale mawjad dadka dabaasha yaqaana biyaha ama mawjadaha isma adkeeyaan mawjada ayay raacaan meeshay geysa ayay arkaan sidaa darteed waxaad samaysaa isdabci mawjadaas la soco jirkaaga u ogolow sariirta haddaad sariirta saarnayd isdabci jirka adoo culays ka dhigaayo culays markaan dhahayo is adkee ma aha isku kala daadi sariirta markaa meeshii aad fadhidid isku kala daadi adiga oo raacaayo xanuunkaas markuu kaa foqo naso isdabci u naso si mawjada soo socoto aa ula sanqaadid intaas ayaan uga baxayaa qodobadayda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ogowna gabar kasta haweeney kasta in loo sameeyey inay uur yeelato oo ay dhasho yacni marka inay uur yeelato kulli haween kasta uur ma yeeshaan laakiin waxaan ka wadaa tii uur yeelata ilaahay wuxuu ugu talagalay inay ka dhex bixi karto markii dhalaysana ay si sahla uga dusi karto stresska badan iska ilaaliya maxaa yeelay stresska dhibaatooyin badan ayuu keenaa waan ka soo hadli doonaa stresskaas dhibaatooyinka uu keeni doono waanse ka soo hadli doonaa maxaa yidhahdaa jimicsi markaas gabadha u fiican waanse idiinsii sheegayaa kadaloobsiga in aad ku dadaashaan intaad guryihiina joogtaan bil ama 2 bil iyo intaynaan dhalin kadaloobsiga waa inaad soo kadaloobsatiin waa in aad يعني مسكها محل دياريسين وحاد الله السلام عليكم ورحمة الله